kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada kalmooy media iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey howlgalka buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari oo u muuqda in markan uu si dardar leh mar kale ku bilaabanayo kadib markii kooxda firxadka ah ee daacish habeennimadii xalay ahayd ay weerar ku qaaday talis ku yaalay duleedka deegaanka daadaar ee buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari ee nawaaxiga degmada qandala halkaasoo khasaare kala duwan uu kasoo gaaray ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland kadibna waxaa lasoo warinayaa in ciidamada ah ay weerarkaasi ka jawaabeen oo kooxihii firxadka ahaa ay dagaal adag la galeen waxaan kula wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay ee dagaalka iyo iskahorimaadka xalay ka dhacay duleedka deegaanka daadaar ee nawaaxiga degmada qandala soo dhowow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta fallada ku dhiiba haddii aad ku faraxsan tahay guulaha ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland muuqaalkan like saar siina sheergaree si meel dheer uu u gaaro warbixintana ay u helaan dad badan oo jecel kuna faraxsan guulaha ciidamada geesiyaasha difaaca dowlad goboleedka puntland qaybta falladana aragtidaada ku dhiibo maxay tahay waqti xaadirkan dib u soo noolaanshiyaha kooxda firxadka ah ee daacish oo markaasi iyagu hadda si dardar leh u bilaabay howlgallo ka dhan ah ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland qaybta faallada nagula wadaag aragtidaada waa hagaaga sidaad la socotaanba buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa ka socday howlgal ballaaran oo ay wadeen ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland kaasoo ay ku baacsanayeen firxad ka tirsan maleeshiyaadka kooxda daacish oo iyagu markaasi deegaano badan oo ka tirsan buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari horey looga saaray isla markaana jab xoogan loo geystay ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland oo ka duulaya ka hortaga iyo sidoo kale dabargoynta kooxda firxadka ah ee daacish ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo ballaaran iyagoona markaasi la wareegay deegaano muhiim ahaa kooxda firxadka ah ee daacish oo ka faa'iidaysanaysa kala qaybsanaan muddooyinkii ugu dambeeyey soo kala dhex gashay ciidamada difaaca dowladda puntland iyo hoggaanka ugu sarreeya taasoo keentay in ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa difaaca dowlad goboleedka puntland ay ka soo baxaan furimaha dagaalka ee buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari ayaa waxa ay sameynayeen maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ballaaran iyo sidoo kale weeraro ka dhana ciidamada ku haray difaaca hore ee buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari sida xogaha markaasi ay nagu soo gaarayaan 3 askari ayaa ku dhaawacantay kadib markii kooxda daacish habeennimadii xalay ahayd ay weerar ku qaaday talis ay leeyihiin ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland oo ku yaalay nawaaxiga ah deegaanka daadaar ee duleedka degmada qandala weerarkan ayaa ku soo beegmayay xilli shalay ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland ay gacanta ku dhigeen xubin ka tirsan kooxda firxadka ah ee daacish oo markaasi isagu ahaa mid ka mid ah hoggaankii kooxdan ee howlgallada deegaanka daadaar ee nawaaxiga degmada qandala kaasoo isagu markaasi loo gudbiyey magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari daadaar ayaa markaasi ah deegaan ay horey ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland ugala wareegeen kooxda daacish kadib dagaalo looga saaray deegaano ka tirsan gobolka bari oo horey ay u haysatay kooxda firxadka ah ee daacish weerarkii ugu dambeeyey xalay ay kooxdan qaaday ayaa waxa uu markaasi muujinayaa in kooxda ay markaasi tartiib ah muddooyinkii ugu dambeeyey u soo laabanaysay iyada oo samaynaysay howlgallo markaasi ka dhan ah ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland goobaha ay markaasi fariisimaha ku leeyihiin iyo sidoo kale dadka shacabka waxaana markaasi muuqanaysa in muddooyinkii ugu dambeeyey kooxahan ay dad shacab ah dhibaateynayeen sidoo kalena fariisimaha ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland ay weeraro ku qaadayeen dhowaan ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland ayaa kooxdan waxa ay ka soo dhiciyeen geel markaasi lagu tilmaamay ilaa iyo 7 neef oo geel ah oo dad reer miyi ah ay ka dhaceen sidoo kalena waxa ay ciidamadu markaasi sheegeen inay weli baadi goobayaan oo ay ku daba jiraan ari lagu qiyaasay ilaa iyo 50 neef oo ari ah oo dad reer miyi ah ay ka dhaceen kooxdan inay markaasi baadi goobayaan ayna doonayaan in saacadaha ama markaasi maalmaha soo aadan ay gacanta ku soo dhigaan buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari ayaa u muuqanaya markan in howlgallo isdaba joog ah ay ka bilowdeen dib u soo noolaanshiyaha kooxdan ayay dad badan ku tilmaameen inay ka dambayso kadib markii ay kooxdan ay hoos u dhaceen duqeymihii dhinaca cirka ah ee saaxiibada caalamiga ay la beegsan jireen iyo howlgalladii dhinaca dhulka ah ee ciidamada difaaca dowladda puntland ay sida isdaba joogga u wada jireen kuwaas oo ugu dambeyn markaasi ciidamo fara badan markii ay ka soo baxeen buraleyda caalmiskaad ee gobolka bari ay hoos u dhaceen kasoo bixitaanka ciidamada difaaca dowlad goboleedka puntland ee buraleyda caalmiskaad oo muddooyinkii ugu dambeeyey noqotay mid xarkaha goosatay ayaa waxa ay keentay in hoos uu dhaco
howlgalkii baaxadda lahaa ee kooxdan la doonayay in lagu soo dabar jiro. Ciidamada ka soo baxay Buuraleyda Calmiskaad ayaa in badan oo ka mid ah waxa ay ahaayeen kuwa ka cawanayay mushaar la'aan muddo 6 bilood ah iyo sidoo kale in muddo sanad ah aysan helin wax xuquuqaad ay markaasi xaq ay u lahaayeen, taasoo keentay in ciidamo fara badan ay ka soo baxaan Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Tallaabadan dad badan waxay ku tilmaameen iyo saraakiil amni inay markaasi hoos u dhigayso howlgalkii la doonayay in kooxda lagu soo gabagabeeyo, sidoo kalena ay nafis u tahay kooxdan oo mar kale ay dib isku soo abaabuli karto, dibna ay isku raadsan karaan. Hadda Buuraleyda Calmiskaad waxaa markaasi ka soconaya howlgalle ay ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland ee halkaasi ku sugan ay wadaan, kaasoo la tilmaamaya markan in marba marka ka dambeyso uu sii xoogeysanayo, maadaama ay kooxdii ebel baxsadka ahayd ee hadda iyada markaasi weeraro qaadayso, una ugu dambeeyay weerar ay kooxdan qaado oo khasaare ciidamada difaaca dowladda Puntland uu ka soo gaaro weerarkii xalay oo 3 askari oo ka tirsan ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland uu dhaawac ka soo gaaray, halka markaasi ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland oo war kooban ka soo saarayna ay sheegeen in weerarkaasi ay fashiliyeen, khasaare badanna uusan jirin dhankooda, laakiin xubno badan oo ka tirsan kooxdii weerarka soo qaaday ay dileen. Goordhowna markaasi ay soo bandhigi doonaan, warbaahintana ay la wadaagi doonaan. Madaxda Puntland ilaa hadda markaasi kama hadlin dardarsa kooxda Daacish ay la soo baxday iyo sidoo kale ciidamada difaaca ee Buuraha Calmiskaad maalmihii ugu dambeeyay ka soo baxayay, kuwaasoo weliba sheegayay inay ku biireen safka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay yihiin ciidamo wixii hadda ka dambeeya si toos ah uga amar qaadanaya dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana mishaarkooda iyo xuquuqdoodaba dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin. Tallaabo lagu tilmaamay in markaasi ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland ay dhabarjab weyn markaasi ku tahay, marba haddii ciidamada intii ugu badneed muddooyinkii ugu dambeeyay ee Buuraleyda Calmiskaad ka soo baxday ay keentay, isla markaana dib u soo nooleysay rajadii kooxda in markaasi mar kale Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ay ku dagaalamaan. Haddaba aragtidaada nala wadaag. Mas'uuliyadda ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland ee Buuraha Calmiskaad ka soo baxaya yaa iska leh? Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni miyaa iska leh mas'uuliyaddan oo xuquuqdii ciidamadan ay lahaayeen markaasi aan bixinin, mise ciidamadan dad kale ayaa markaasi ka dambeeya inay ka soo baxaan Buuraha Calmiskaad si kooxda Daacish ay fursad iyo nafis markaasi ay u hesho? Aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag sida aad u aragto. Hana hilmaamin inaad nagu soo biirto oo channelkan subscribe aad dhahdo, muuqaalka aad like gareesho haddii aad ku faraxsan tahay gulaha ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland. Muuqaalkan like saar, siina share garee oo gruubyada iyo meel kasta oo ay ka heli karaan shacabka reer Puntland ugu share garee si ay markaasi ula socdaan xaaladda cusub ee Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ka soo korodhay. wax walba oo ku saabsan Buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari iyo howlgalladan dib u bilowday iyo dhaqdhaqaaqyadan cusub ee kooxda Daacish ay la soo baxdayna mar kasta waxaa noqon doontaa daawadaha ugu horeeya ee halkan aynu kula wadaagno. Si aysan kuu dhaafin muuqaalkan like saar, channelkan ku soo biir, calaamadda subscribe ka taabo, gambaleelkana furo.